اهتديت في رحبه تحلو الحياة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ugu horeyntii waxaan halkan uga mahadnaqayaa فضيلة الشيخ الفاضل محمد الخاشعي يا الشيخ الفاضل حمزة anigoo tibaacaya man laa yashkuri الnaas laa yashkuri illah. marka waxaan kale jazaahum allahu khayr aljazaa juhuudda faraha badan leh ay dacwadda iyo nashra alqur'aan iyo maxabat alqur'aan ay mar walba u taagan yihiin. baaraka allahu fiihim. ilaahayna subxana wa tacaala niyaddooda ikhlaas ha geliyo, annagana subxana wa taala ilaahay naga dhigo kuwii ku manaafacsada ku intifaacsada. intaa dabadeed waxaan uga soo gudbayaa kolley mujtamac markuu meesha joogo waxaa fiican qofku inuu ka hadlo wixii mujtamaca khuseeya iyo xaaladda wadcigaa taagan. xaaladda inagu cusubna maaha. waxaan kelmad yaroo kooban ka odhanaya waxa weeye xaaladda gobolka togdheer iyo waxyaabahan ku soo kordhaya ee macaasida ee ay kow ka tahay heesuhu kow ka yihiin. dad badan ayaa waxay jeclaysanayaan inay la murmaan dadka ahlucilmiga ah marka la heesuhu waa xaaraan, taasoo aanay shaki ka jirin. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. muxuu hayay mufasiriinta cabdullaahi ibn mascuud wuxuu ku tegey in ay tahay alghinaa.ghinaaguna uu yahay mizmaar min mazaamiir shaytaan ama codka shaydaanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala shaygan wuu inaga xaaraantimeeyey, waxaanu ku sifeeyey inuu sifaadkaa leeyahay shaydaanku. markuu nabiga alayh slat slam ilahi subxana wa tacaala uu ku yidhi wastafziz man istatacta minhum bisawtik. codkaa la sheegaya waxa weeye waa codka shaydaanka. codka shaydaankuna waa ghinaa. ghinuhu ilaahay ma bannaynin. dadka u doodaya ee muslimiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo horjeesanaya sharcigiisa iyo axkaamtiisa iyo ululcilmiga, waxaan leenahay ilahay ha laga boqo. waryaynaan isu keen raacin jaahilnimo aynu ka jahlinahay diinteenna iyo shariicadeenna iyo muran aynu la murmayno ahlucilmigeenna. ilahay subxana wa tacala wuxuu fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. dhammaan culimmadeenna iyo dadka aynu ku dayananaaba waxay xaaraantimaynayaan oo xaaraan maqtaca ay ku tilmaamayaan waa heesaha weeye. heestuna inay wax fasahadisa mooyaane waxba ma wanaajiso. ninbaa waxa nin ku qabsaday heestu waa xaaraan iyo waa xalaal. deetana wuxuu ku yidhi waa yahay mid baan kuu sheegayaa, waan ducaynayaa ducada aamiin dheh. deetana wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo sujuudsan hayna dilo. ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna dilo inaga oo qur-aankiisa akhriyayna aamiin buu yidhi. markii dambe uu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna dilo inagoo heeshayna, wuu ka aamusay. ilaahay subxaanahu wuu ku celiyey, wuu ka aamusay. sababta uga aamusayna waxa weeye waa xaaraantinimadeedu garanaya. waayo heestu hadday khayr leedahay dee waynu ku ducaysan lahay inagoo sujuudsan ilaahu anigoo heesaya oo kaman haysta oo isruxaya ilaahu dil. qof inaga mida oo aqbalaya ama ducada jecel ama arrinkaas inuu ku dhacaana ma jirto. qof walba oo muslina oo la tuso qof ku dhintay xaalad isagoo ama hees ku jira ama kamaantumayana waxa odhan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. sababta loo odhanayana waxa weeye waxaa la ogyahay ma'aalkeeda iyo xumaanteeda iyo inay tahay wax shaytaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa cidda macaasida u sacabatumaysa ee dadka ku dhiiri gelinaysa ee muxuu ahaye baraha bulshada soo dhigaysa inuu ilaahay ummadda ka qabto. wamaa dalika cala allahi bicasiiz. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu jecelnahay inaanu ku noolnaano beled iyo waddan aanay heese ka jirin, ilaahay lagu caabudayo, ilaahay lagu cadamaynayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xusayo mar walba. badanka dadka mujtamaca sidaa muxuu ahaye ahina waxa weeye waa sufahaa. dadka badankoodu way ogyihiin inay shaygani xaaraan yahay, way ogyihiin inaanu khayr ku jirin, way ogyahay ka ku jira ee heesaya ayaa og inuu xaaraan yahay. waxaa tusaale inugu filan niman badan oo muxuu ahaye berigii hore shaydaanku duufsaday oo heesi jiray ayaa ka toobad keenay imika ka soo noqday. waxaan ugu dambeeyey maxamed baa ugu dambeeyey maxamed biike oo la baxay maxamed mubaarak. hadduu khayr ku ogyahay isagaa maqaam ka gaadhay, isagaa muxuu ahaye lacag ka helay, ومع هذا كله فرق قاضي واي وحوجه شيء وكهل يابا هنا حرام تاي. إخواني في الله كلمة ده وحنا لقيت كانوا علم مردامه عبادة مردامه، لكن القول قولك حقه إن الرعوة واجب. وفقنا ما هي إنه هذا بديدودو
والله حلالين لكن القلة فيها الخير صلوا شاقي يعني إلهي سبحانه وتعالى كتابك سكورة دائما أقلية ذي أنت يرأي خير كتيرة وقليل من عبادي الشكور مر والبولة الماما يدتك وناقي خيرك اللي قلت الماما وحال قلت الماما إنا يجريهين مركا وحن لا يهيانا إذن دقن بدنانت أهل الباطل وبدن يهي محوها ينكت صالق هذا أهل الخير كيدتك وناقسن يرانت وذواي يقى خير كتيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتديت في رحبه تحلو الحياة.